Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Soccer Academy. Fadlan haddaa ku cusub tahay subscribe jaawo kambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena dambe. Waxayna socday cashirkaani ka horreeyay aan ku qaadanaynay sida loo sameeyo natiijada ardayda, isku soo darka totalka iyo average celcelis qof intuu keenay iyo maadooyinka ugu badan intuu keenay, maadada ugu badan intuu keenay iyo maadada ugu yar meeshuu ka joogo. Sidoo kale waxaan qaadanay inta maado u galay ee loo yaqaano counties. Maanta waxaan qaadanaynaa qaybteena labaad oo ah grade, sidee loo sameeyo qofka grade-ku waxaan u kala qaadanaa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaan dhahaynaa waa qaybta dhacay iyo gudbay ah. Grade-ku waxaan u kala qaadanaa laba qaybood, qayb ah pass iyo fail ama gudbay iyo dhacay ah, iyo qayb aan ku siinayno xarfaha oo ah A plus, B plus aan ku kala siinayno. Marka ugu horeysa waxaan soo kacsanayaa office-kayga aan ku isticmaalay computer-kayga. Sidaad halkaan ugu jeedid waxaa ii diyaarsan xogtaas aan kaga damacsanahay inaan ku qorto natiijada ardayda aan rabo. Tusaale waxaan leeyahay ardayga koowaad iyo ardayga labaad. Ardayga koowaad magaciisa waxaa la yiraahdaa Maxamed Abdulqaadir Hiirey. Soomaaliga waxaan leeyahay wuxuu ka keensaday ardaygaasi 100, sidoo ku xigtay maadada ku xigtana 90, 95, 85. Totalka waxaan hore usoo qaadanay 3 qaybood sida loogu sameeyo. Waxaan isticmaalaynaa qaybta alt iyo is equal oo la iskugu soo daro wixii total ah xisaab halkaa kugu yaalay. Sidoo kale average-kan waxaan leenahay is equal average. kadibna waxaa furanaysaa bracket. waxaan leeyahay totalka loo qaybiyay inta maado galay oo ah 9 maado loo qaybiyay halka maado inta lagu saxay oo 100 ah. Ardaygaas hadda wuxuu haystaa 93. Haddii lacag ku soo bixi wayso calaamada percentage-ka waxaa ku dhufataa halkaani oo meeshaas percentage-ka ku dhufo oo waxay noqonaysaa markaas mid percentage ah. Laakiin haddii san percentage-ka ku soo bixin oo sidaan oo kale ay ku soo baxdo meeshan ayaa general ka ah oo waxa ka dhiganaysaa markaas percentage wuxuu kugu dhigayaa marka 93. grade 1 ayaan ku hormaraynaa oo ah sida loo sameeyo waxa loo yaqaano pass iyo fail ama gudbay iyo dhacay ah. Marka ugu horeyso waxaad qoraysaa is equal if, waxaad furanaysaa bracket, kadibna waxaad ku dhufanaysaa godka average-ka ah. Waxaan leeyahay godka average-ka haddii uu ka weyn yahay 0.55 oo ah macnaheedu 50 ama 50 waad qoran kartaa. waxaad dhahaysaa comma markaad dhahdo waxaad furanaysaa double quotation. waxaa leedahay halkaasi pass intaan ku qorin gudbay ayaan ku qorayaa. gudbay markaan ku qoro waxaan ku xirayaa haddana double quotation oo waxaan leeyahay haddana comma, haddana waxaan furayaa double quotation oo ah markaasi dhacay ah. double quotation kadibna waxaan xiranayaa hal bracket. midaan ugu horeysa haddii ay 50 ay ka weyn tahay waxaan gudbay c comma oo macnaheedu ay tahay haddii ay 50 ay ka weyn tahay 50 ayaa loogu talagalay. haddana waxaan furay double quotation oo macnaheedu tahay haddii ay 50 ay ka yar tahay waxaad siinaysaa dhacay ayaa siinaysaa kadibna waxaan leeyahay inta. sida hadda arkayso halkaan waxaa ii soo baxay calaamada gudbay ah. calaamada gudbay marka waxaan ka dhiganayaa poly, laakiin ima naqanayo oo ima saamaxayo. laakiin bedelkeeda waxaan ka dhigan karaa godkaasi wax kasta ku qormayo in calaamada poly laga dhigo oo sidaas ayuu ka dhigayaa poly. marka waxaan rabaa qof kale inaan soo qorto magaciisa. tusaale kale waxaan ka dhigayaa ninka Tahir la yiraahdo. Tahir Ali Muumin. waxaan ka dhigayaa maadadan inuu dhacay. tusaale maadadan 100 ayaan siinayaa. waxaan sameynayaa totalka markaan rabo halkaas double click ku siinayaa waxaa ii soo baxay totalka. sidoo kale halkaas double click ku siinayaa waxaa ii soo baxay average-ka. sidoo kale halkaas ayaa waxaan ku siinayaa marka double click. marka waxaan sameynayaa hadda gudbay ayuu ii sii sababta waxay tahay wuxuu haystaa 58, 52 ayuu haystaa welito. maadadan sidoo kale waxaan ka dhigayaa marka 50. waxaan aragtaa hadda 48 ayuu haystaa. 52 haddaan ka dhigo
waa 48 halkan 20 ka dhig 49. maxaa aragtay ninkaas hadda wuxuu kuu soo baxay waa dhacay. waxa kuu soo baxday waa dhacay. sidaas horta waxaa loo sameeyaa hanaanka imtixaanka dowladda ee ardaydu adeegsato oo ah gudbay iyo dhacay. sidee marka jaamacadaha iyo iskuulada la adeegsadaa oo habka ah sidee loo siiyaa qofkan A plus ama A minus ama B minus ama B plus. waxaan imaanayaa halkan horta kow grade 2 ayaan sameynaynaa. waxaan qoranayaa waxa la yiraahdo is equal if waxaan furanayaa bracket waxaan leeyahay godkan average-ka haddii uu ka weyn yahay 0.95 comma double quotation waxay ii siisaa ardaygaasi A plus double quotation comma ayaad ii siinaysaa. sidaas hadda waxaa ku samaysa markaasi A plus ardayga A minus meesha ku qaadan lahaa. sidoo kale haddana waxaan leeyahay marka if markaan dhaho waxaan furanayaa haddana bracket kale oo waxaan ku dhufanayaa godkani average-ka waxaan leeyahay haddii uu ka weyn yahay 0.9 comma waxaad siisaa double quotation A caadi ah double quotation comma ayaan siinayaa. sidaas la mid ah haddana waxaan ku xijinaa marka hadda waxaan sameeyey A plus iyo B minus meeshaas plus aan ka dhigo halkaana imaanaya haddana waxaan qoranayaa if oo bracket ayaan furanayaa waxaan kusoo dhufanayaa godkaasi ah M5 ama caadi ayaad u qoran kartaa M5 haddii uu ka weyn yahay ayaan leeyahay marka 0.85 comma double quotation waxaa siisaa B plus double quotation comma if ayaad leedahay haddana bracket ayaa furanaysaa M5 haddii uu ka weyn yahay 0.80 comma double quotation waxaad siinaysaa B caadi ah double quotation comma if ayaad leedahay haddana bracket ayaad furanaysaa bracket marka aad furato if ayaad leedahay bracket marka aad furato waxaa qoraysaa godkani oo average ku yaalo ah haddii uu ka weyn yahay 0.75 comma double quotation qofkaas waxaad siinaysaa C plus double quotation comma waad xiraysaa. sidaas la mid haddana waxaan leeyahay markaasi if bracket ayaan furanayaa godka M5 oo ku yaalaan average-ka haddii uu ka weyn yahay 0.70 comma double quotation waxaad siinaysaa C caadi ah double quotation comma waxaan leeyahay haddana if bracket for godkani M5 oo average-ka ah haddii uu ka yar yahay ama uu la eg yahay 69 comma double quotation waxaad siinaysaa ardaygaasi veil oo dhacay ah double quotation markaan dhaho hadda waxaan isticmaalay 7 qaacido waxaan ku qasbanahay inaan xiro 7 bracket oo furan. midka ugu dambeeya bracketka ugu dambeeya waxaa waajib ah inuu madow uu noqdo. okay waxaan xirayaa bracketka koowaad 1 2 3 4 5 6 7 midka ugu dambeeya waxaad aragtaa inuu madow uu noqday. sidaas la mid ah haddii qaacidadu meel yar ay ka qaldan tahay markaad intro aad dhahdo meesha yar ay ka qaldan tahay ayuu kuu calaamadeynaya ayuu kuu sheegaa haddiisan ay ka qaldaneen wuu qaadanayaa. intro ayaan leeyahay waxaa aragtaa ardaygaas hadda wuxuu sidayaa waxa la yiraahdo A caadi ah. ardaygan wuu dhacay hadda maxaa aragtaa wuxuu sidayaa veil oo dhacid ah. waxaan sameynayaa marka halkan waxaan ku qoranayaa magacyo kaleeto. waxaa aragtaa marka hadda inaad sidaas ku samaysatay waxa la yiraahdo grade-ka haddii ay ahaan lahayd dhacay iyo gudbay labaduba intuba aan samaystay hanaanka dowladda sida loogu isticmaalo ardayga in lagu soo qoro dhacay iyo gudbay ama in loo soo qoro inuu A plus ama B plus ama A caadi ah uu sito intuba qaabka ayaa markaasi wax loogu sameeyaa Excelka. fadlan hadduu cashirku ku anfacay u share garee asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.
haddaadna noo rukunin subscribe noo saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena dambe.